عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلامي سومالوين ميل كستو جوجتين وحا إذن لاي هاي في نمو وناكسن ولا ليالا هورتا intaan barnaamijkay gudaha u galin codsiyaa wataa markaa fiidiyoga aragtid maxaa waaye subscribe iska saar iska share garee lacag maaha deen lagu lahaanayo maxaa ku dhahaa walaashaana waa ku saacideynaysaa samaha marka iska subscribe iska saar share iska saar iska soo dhaweey markaas kabacdina maxaan ku dhahaa waxaan ka mid noqon saaxiibada aniga aan maxaa ku dhahaa jeclahay adduunka aan ku leeyahay qof kasta qofkiisu wax ku yahay anigana Soomaali unbaa wax ku ahay marka waxaan u baahanahay inaan marka sheegaysiin muddo ilaahay ma dhihin midda kale cawadana waxaan ii wadaa hadda qiso kale ani waan ii sheegay waxa arko wixii aan maqli jiray wixii aan arkay wixii aan maqla xataa iska soo sheegay laakiin wixii xaqiiq ani asoo waxaan xaqiiq noqon karaa iska soo sheegi karaa leh marka yani ma sameynayo inaa ii sheeg aan waxaan macquul ahayn soo sheego macna weyn ma sameynayso ilaa waxaan macquul ahayn soo sheego maadaama waxaa fadhiya ee tahay social media ee tahay anina ahay qof weli sumcadeeda u baahan ma rabo inaan maxaa ku dhahaa waxyaabo jirin ka sheekeeyo laakiin horta wax walba ilaahay baa og laakiin intii bini aadan maqal ahaan intii macquul ah qaadan karto unbaa kasoo qaadanaysaa ma fahanti marka cawadii asxaabaya warka idinku daalin waxaa idin hayaa qiso kale oo la magac baxday maxay la magac baxday qisadaasna ayadan tii xalay ayni sheegay tan aan kasii daran tii xalay waa macquul iskeed inkastoo wallahi ay xanuun tahay marka qaar waxyaabaha dhacay marka aragti aslada bismillah maxay tahay dhacay si u yaalaan waxba wax way ka sii daran yihiin marka waa sheekadii la dhihi jiray nin dakhran haduu ku imaado yani fiirin gadaashiisa fiirin nin dooxana daba socdo camal miyaa maqaad ma maasas ay jirtay marka qisada xalal ayaa bareedeen tan waa mid kale ka sii daran tii xalay ilmo la waayay ee tan agsi naxdin badan maxay aheedo tan waxay tahay askari adiga xiligi inay tahay umleynaa Soomaali dawladda ay ka jiri jireen suju in dawladda oo siyaad baramiya ama tii ka horeysmiya ma aqaani sorry inkastoo dawladda aan garanaynin yani aniga oo dawlad adiga marka Soomaali ka jiri jirtay oo markaas awood lahayd oo ciidamadeeda gobolada Soomaaliya meel kasta la bedeli jiray yani sida Soomaalida dhammaan sidii yani adduunka booliiska ku nool oo kale maanta loo bedelo camal ama hadda xataa kuwa Soomaaliya joogo wax malayn karaa saas kale ay kan yihiin maadaama aan Soomaali aan joogin laakiin wax ka warhayo amlayna marka ninka askariga wuxuu ahaa nin askariya dirdhow meel dhahaa la geeyey dirdhow marka la geeyey asaga oo yani ciidamo oo si xilligii markaas dawladda meeshaas ka tilinaysay ani inay siyaad barataa inay ka horeyso sheekada waa sii weydiin laakiin qisada waa qiso dhacdo xaqiiq ah xilli ada askarigaas waa la wada xamraa laga qaad dirdhow waa la geeyey waxaan u qaatay marka aan dagaaladii 77 inay tahay because of madaxweyne bahalka laga qaadayo askariga oo la geenayo dirdhow aan waxaas dhahay dagaaladii xilligii 77 inay tahay laga yaabaa marka macna weyn ma sameynayso ninka meesha laga qaaday ee meesha la geeyey laakiin sheekada meesha ay ku socoto inay ogaato waay ninka marka waxaa la dhahay sheekadan ninkii askariga ahaa markuu dirdhow tagay hadduu iska taqaanaa nin bini aadan waaye ninna asmaro horta meesha tago waa naag inuu raadiyo iska jecel yahay naagoo iska guursaday oo iska khudba siraystay markuu iska khudba siraystay adigu intii askarigaas shaqadiisa ku jirtay bay nin inaagtiis ahaayeen askarigii bedelaa ku dhacay ilaa imikaas xilligan isgaarsiintan casriga waxaan nameeni jirin oo qofka inta wacdaadhaysid cawada abaamir bila u socda ama waxaas ismaysa jirin ee dadka maxaan ku dhahaa way isla maxaan ku dhahaa way yacni dadku saa iskulamay xariiri jirin hadday xooga kala yara maqan yihiin ama ay kala markaas laba goboloo kala fog ay joogaan oo kale xariirka aad u adkaa marka gabadhay ilaahay amarkiis habeeney ninkii nin ay xaskiis ahaayeen kabacdi uu reelatay askarigu iska soo baxay sama meeshiisu kusoo laabtay askarigu meeshiisu kusoo laabtay adii muddo 20 sano markii laga soo wareegay 20 sano markii laga soo wareegay waxaa la sheegay inuu askariga haddana beledweyne dhul la dhahay inuu aaday beledweyne markuu aaday 20 sano kabacdi burburkiisa aad baraa beledweyne ninka Soomaali ku qabsaday waa tii la kala firdhaday maamadii gabadha dhashay maamadii oo ninkaas guursaday yani sheekada idinka soo kala iloway maamadii askariga gabadhu guursaday dhowr habeen bay maxaan ku dhahaa nin ina xaaskiisa ahaayeen soo ma ku dhihin yani uur yeelatay gabadhii markay uur yeelatay ninka askariga asoo war ka haynin uu soo baxay badala lagu soo sameeyay beledweyne laga tuuray beledweyne markii laga tuuray beledweyne iska joogi jiray aduu markii 20 sano la joogay burburkii yaa dhacay dawladihii aday wixii kala yaa markaas wadanka dilay alxaasil ninkii maxaan ku dhahaa askariga ahaa ase inuu wax qaldan sameeyo rabin sida la sheegay laakiin qadar iska dhacay
inkastoo dadaalyanin ay jirto. marka waxaan u aaneyn karnaa sheekadaas inay ku dhacday isgaarsiin la-aanta waddanka ka jirtay iyo askarigaas bedelka lagu sameeyo degdega ah iyo askartoo markii bedelka lagu sameeyo aan waxa aan lahayn xorriyada yacni oo nin markaas bedelka lagu sameeyo inuu hore gaariga kasoo raaca ay tahay. marka wixiina wax weyn muuna ka dhiganin oo yacni inuu daba kacay ahayd muusa soo daba kicin inkastoo oo sheegay inuu xariiro badan oo sameeyey laakiin xariiradiisi maxaan ku dhahay ay wax qaban waayeen. gabadhii uurka ee yeelatay gabaray ku umushay. gabadhii markay gabar ku umushay maxaa ku dhahaa muddooyin adii waxaa u dhexaysay 20 sano intii oo kasoo tagay iyo intii gabadh ay kortay 20 sano ay gabadhi gaartay. maxaa ku dhahaa reerkii way soo guureen ayakana burburka kadib way soo guureen magaalada muqdisho soo degeen. markay magaalada muqdisho soo degeen muddo ka bacdi waxaa dhacday maxaa dhici doonto gabadhi inay maxaa ku dhahaa maamadii ayada ninka iyo gabadhi iyo maamadiba ay xamarkooda ay wada joogaan yacni iskama warhaayaan laakiin ninkii askariga ah asagoo odaya oo caruur badan kabacdi dhalay xaasas badan kabacdi guursaday kuwana awal hore u qabay gabadhiisi xamar soo degeen. gabadhiisi markay xamar soo degeen ninkii odaga ahaa oo gabadhaas dhalay asagoo markaas adigu 22 markii lagu qiyaasay ay gabadhaas ay soo kala maqan yihiin iyo ninkaas iyo islaantaas oo ilmaha ka dhalay aanan meel isku sheegin. maalmaha kamid a wuxuu ku dhahay nin saaxiibkiisana yahay 3 naag aan leeyahay kowdhe maadaama aan xoogo waa iska taqaanahay soomaalida afar naag iska jecelyiin ma aqaan walaa wax ku jeclada inuu fahmi lahaa laakiin afar naag iska jeceshiin. marka afar naag naagta afraad aa ka wadaa naagta afraad wuxuu dhahay naagta afraad aa rabaa inaad samaysto waxaa rabaa inaa gabar iiraadaysa camal niho gabadhi gabaraa kuu haaya camal dariskeena waaye gabadha hooyadeed dir dhaway kusoo laabatay xamare uga soo tagtay. marka waxaa la gabadha markaas reeray u shaqaynaysa ma fahanti gabadha reeray u shaqaynaysaa xilligaas u shaqaynaysaa markaas reerka cawad u shaqaynaysa degmada hodan waaye laakiin xaafadda ka tahay sorry ma sii weydiin ayadane hodantaas ay joogtaa reeray u shaqaysaa. ninkaa gabadha waa loo soo qabatay waa la baray waa la tusay okay dhib malahuna waa gabadhiisiya warkaa ku dhaco warkas fiican u dhegeyso ninka waxaa la baraa waa gabadhiisi laakiin waxba ma oga. alxaasil maamada marka gabadha dhashay oo ninkan uu ayadoo uurla kasoo tegay waxaa guursaday nin kale waxay u dhashay 6 caruura 6dii caruurta way koreen maamadii waxay noqotay yacni ilmooley caruurtii gabadhan ka yareedna waa iska koreen ninkii maadaama la maamadii inay iska guurtay caruur bay u dhashay. gabadha marka waxaa la dhahay faamilka oo gabadha maamada ay ka dhalatay markay uurka ku arkeen gabadhan gabar yareyna ahayd waxay dhaheen anaga fiiri askari wax iga dhalay iyo intaa nagu dhahaynayna askarigii wax ka dhala ama haysa waa maya saaxiib culuga wacala u diiwaan gelinaynaa mac salaama camal meeshaas inagu soo gabagabay sheekada. adi waxay dhahday wuxuu dhahay gabadhii wacali ahaan jirtay maadaamana aabaheeda meel lagu sheegin oona soo hadlin oona reer u imaanin gabadhii maxaa ku dhahay wacali unbaa lagu salayay. gabadha marka museygan dambe oo gabadha maamada qabo oo islaantana canininkeeda dambe oo ilmaha u dhalay aabo u ahaa. marka ninkii saaxiibkiisa wuxuu ku qancay inuu ninkan gabadhan guursado. okay dhib ma lahan gabadhii waa lasoo doonay hooyadeeda lala hadla markaas diridhab ku maqleed oo baxday museygii oo hooyadeed qabay ah lala hadla anaa dhalo dhaha gabadheyda wilaayadeedan anaa iska leh anaana mehri waa kaas. waxaa leh marka waxaa ka soqay awlaad inay dhiig inuu cajiib yahay oo yacni ilaahi subxaana watacaala wuxuu isku nasaqay ee tahay ilmaha iyo waalidkiisa inay wax cajiib ay yihiin xasbana allah wa nicma alwakiil ilaaha ka magan galne. waxaa dhacday gabadhii waxaa samaysay museygii gabadhii wuu guursaday habeenkii guriga markii gabadha arooska la geeyey oo naagta afraad ee tahay xaaska afraad waana gabadhiisi oo dhalaya museyga waxaa dhawa wuu xanuunsada wuu suuxay markii dadka ka kala tageen buu suuxay bis waa la soo qaaday biyaa lagu shishubay adii quraana la saaray museyga reerkiisa lagu celiyaa gurigiisa lagu soo celiyay haddana markii lagu soo celiyo laga kala tago sidii uu suuxaa leh adii alxaasil muddo bil iyo bar markuu ninkaas suuxaayo xilli kasta oo gabadhaas keligiis la noqdo oo suuxaayo waa ani walaa qisadaas waa la yaabana ilaa hadda laftirkii waxaa la dhahay museygii gabadhii markuu markasta suuxaayo oo markasta suuxaayo waxaa la bal gabadhan sahelna waa Soomaali waa taqaanaa waxay iska aaminsan yihiin shaqeeyo meel heblo fariisto yaa loo tago reerkan sixira guriga loo gelisaa waxaa la dhaho amal waa la baxay meelahaas ma aqaan oday unbaa loo tagay odagan dadkan timaha waaweyn camal odayaashan dadka wax sameeyaan camal aa loo tagay waxaa la gabadhan reerkan wax ka dhaxay sheeg gabadhan iyo wiilkan markuu u tago museygan xoogowna wuu ka yar weyn yahay gabadha adiga un oday markaas ninka maxaa ka qaldan cidaan odag wuxuu dhahalday meeshaan ma aqaano aniga waxaa ka arkaa mucjiso camal adi dadkan inaysan is anficaynin ha lagu kala faatixaysto camal meeshaan bis ninka marka waxba ma fahansana oo yacni barnaamijkaas iyo gabaraa dhashay waxaas ma kusoo dhacsano
marka gabadhii u imaado wuxuu ku dhahay maadaama shalay heshiinay maantana waxaa rabaa inaa yani aa kala faatixaysan camal gabadha waxay dhahdaa aniga walaalow arrinta kuu sheegay dhahday aniga inaa nin intuu ifuro i gursado diyaar uma ihi waa sida gabadha ay dhahday maadaama anigoo yar aabahay uu hooyaday uur uga tegay wuu askari ahaa yani qisada dhab gabadhaa sheegi doonto oon aniga intaas wacalnimo kusoo koray oo haddana maanta reerkii aasaas meesha fadeexadii iyo magacii maxaa ku dhahaa kasoo dhexbaxaa isdhahay reeraa isatay iskirasoo isdhahay haddana ma raba yani inaa maxaa ku dhahaa meesha ku laabto oo lidhaho awalbatan tukaafada aheeda waa lagu soo celiya camal ninkii dhegta warka usii dhiga dhegta usii dhiga muxuu dhahay haye war ani xataa hadda kahor gabar meeshaas ku guursaday laakiin xogoo anoo ka yara shakisanoo ee dadabaqaysa camal kasoo tegay ma fahansani inay uur laheyd mana umalaynaya xataa inay leedahu dhahay bal hooyadaa magaceeda isheeg magacii naakiisa oo zamaani eeba sheegtaba oo u yaqaan war ilaahay amarkiisa ninkii si fiican oo usuu xaal ugu leh si fiican oo qooma ugala loo beriyo qooma ku jira adiga sheekada eedoo shaki bas ay taagan tahay waxaa la dhahay gabadhii ninka xoogoo nin iska yar labanoo kis iskaystu ahaa wuxuu dhahay magaaladan ka tagno gabadhan aan kaxeeyo dalka kenya aan geeyo nairobi aa gabadha la keenaa la dhahay waxaa qisadaas dhacaysaa 1993 waayaa warkeyga fahan gabadha markii waa lasoo kaxeeyey oo qisas gabadha nairobi la keenaa 93 dhacdaa la dhahay waa lasoo kaxeeyey nairobi aa la keenay dna gabadhii museyga mareen waxaa ogaaday gabadhi inuu asaga dhalay ninkii marka museygii halkaas waxaa uga dhacdaa lagu dhahay sokor dhiikar waxaa ku dhuftay cudur la dhahaa stroke maa la dhahaa wax oo dhinac ma baqtiya dadka ma aqaani adig wax aa ku dhacay adig museyga xanuun xunaa ku dhacay yani naxdinta dartiis halkaasaa maamadii loo yeeray halkaasaa laisku fahmay maamadii qisada uga sheekeysay waxay ku tiri ani waa ku waayey maxaan ku dhahaa maadaama oo isheeg aad iisoo laaban weyday lambar taleefon xiligaas uuna jirin isgaarsiin ay jirin qabiilkaaga hal qabiiloo korabisa ka aqaanaa leh museyga hal qabiiloo korabisa ka taqaan wax kale koosi baa laakiin waxay ku fiicin ayahiisa unbay taqaan maamadina adag iska reebaadiya iska qalbi adagin mogtahay waxumaba eerasaraasaninba meesha oo dhaqaaqday marka inkastoo xiligaas xataa ilmaha aabal-aanta dhashto ay naadir ahaayeen hadda sida hadda maanta adduunka bulaacadaha ilmaha lagu soo riday inta cunug lagu soo riday inta cunug yaallaa baca inta lagu soo riday aysan jirin oo yani xataa gabdhihii markay wacal dhalaan xiliyadaasoo kale amase cunug oo aabal-aan waa la toogan jiraa le ama maxaa xarigaa lagu diri jiray mise godaa lagu ridi jiray marka qarni xooska oo dadka ay diinta maxaa ku dhahaya markaas weli sida hadda ay tahay ayna ahayn oo dadka ay iimaankooda sida hadda u yahay una ahayn alxaasil warkaan igu badinin ina dhagaha idinka daali ma rabo gabadhi siduu gabadhi aaba ku heshay sidii gabadhi aaba ku heshay marka gabadha yarkii ninkii gabadha ku daray oo shalay yiri gabadhan gabar wanaagsan waaye ee iska guurso maadaama ay cidaha ay qadaamo u tahay waxba dhibaatada ayna qabin ninkii dhahay gabadhi lagu daray ma fahanti ninkii gabadhi guursaday ninkii gabadhi araqs u dhigtay sidii marka reerka family iskugu soo laabteen sidii oo ninka marka oo cafis ku weydiistay gabadhiisa ilaah u naxariisto waxaa maqlay 1996 inuu museyga ninkaas inuu geeriyooday isheeg magaalada balweynin oo lagu duugay yani midha album kalo meeshaas u dhasho amaleyna marka soomaaliyay gaar ahaan nimankiina xal naaga ahayd mogta cawada nimanka waaye xal naaga ahayd naaga intay awtinada aadayaan maxaa ku dhahaa cawada xaflad aroos yani ma aqaano fanaana imaanaya lagu leeyahay nairobi waxaa arkaysaa habeen la dudaayo waxaa lagu dhahaa cawada fanaan hebel asoo degaa 3,000 shilin mise 2,000 shilin mise 4,000 sii wadaa cawada intee socotaa fanaan hebel imaana waxaa laga inay xaastaa laga yaabaa inuu ninkeeda sariirta uga tagtaa laga yaabaa inuu ninkeeda maxaa ku dhaha guri iska jooga laga yaabaa inuu ninkeeda safarka soo galayo laga yaabaa waxaas yani ayada endareynin way iska baxaysaa way soo wareegaysaa way soo baashaalaysaa way iska soo weynaysaa mana u ficno inay qofka dumarka ina saa samayso waa tii ilaahay dhaha dumarka guryaha ku jiraan yana ka bixin ilaa ma wax daruuri ma ogi waxaa kuu saaray ragga naagaha iska qudbaysanaysanaa ayaga laftirkooda adina hadhow gabadhaada la guursaysa saas oo kaleeto laakiin alxamdulilah misaga suxba ilahay ugu gargaarow adoon ilaahay jecel yahu ahaa gabadhiis ilaahay ka seef gareeya ma fahantay marka idinka waxaa laga yaabaa inaa gabdhihiina iska guursatiin hadhow haddaa waxa yani oo kale aad samaysiin oo ku fududaatiin laga yaabaa niman badan adduunka hadda la joogo marka arrinta laga hadlo waxaasaaba ka shaqeeya isku dhufsano guur la dhahayaa jiro isku dhufsano kala dhufsano camal laakiin kaasna xaaraam waaye because wax mustaqbal laga lahayn mamnuuc waa in la sameeya waa inuu mustaqbal qofka uu leeyahay ujeedo inuu ilaahay gurigiisa oo yani guri ilaahay ummadiisa ay leedahay waa inuu dhiso yani guri waxaan ka wadaa guri inuu dhiso qofka oo reer dhisto inuu dan uu leeyahay xaajo u leeyahay waay hadduuna qofkaas xaajaba gabadhan ka lahayn inuu isku guursado oo aan kumoodo qalbiga hadday ku jirto maba kuga xirantaba iska tumaad liistina meelaas iska tumtida quran marka waxaa uga goleeyahay markaas nimanka ayagana ha iska hubiyaan meelahay marayaan ha iska fiiriyaano islaamahay furaan ha iska hubiyaano
haddii kale walaa olololo gabartaada arooskeeda dhooti aabaheeda aroosooy adaa ku taala marka ani waan salaamaya intaas ka badan inaa idin sii mashquuliyo marabo channelkana subscribe isoo saara maxay ku dhahaate shay ii sheer garee maxaa ku dhahaa hadde caawa haddaa idin soo hoydo ooni dhaho cawada casha idinka rabaa waa isii lahaydeen maho inkastoo soomaalida dee loo bir casha kusiiso biri eega furku bedelaysa ilaahay aan ka magan galna horta laakiin hal habeen haddaa casha dhiga soo doonto waa isii lahaydeen hadda caawa waxaan iga rabaa subscribe waaye channelka subscribe ii saara like ii saara ii sheer garee maxaa ku dhahaa garab isiiya insha allah tacaala anin insha allah walaashiin oo garabkiina noqon doono hadduu ilaahay idmo oo maxaa ku dhahaa jawiga oo isbedelo insha allah tacaala marka waxaa idinka tagaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu habeen wanaagsan